مسؤولين كسعتي وسارة خيرات كبيها سوماليلاند مامولك gobolka iyo degmada Burco ayaa si rasmi ah xilkii ugu kala wareejiyay maarayihii hore ee wakaalada biyaha Burco Ibrahim Jirde iyo maarayaha cusub ee wakaalada biyaha loo soo magacaabay Mudane Fadxi Axmed Cabdi munaasabadii xil wareejinta madaxda wakaalada biyaha ayay ka soo qayb galeen cuqaal salaadiin dhalinyaro haween waxgarad iyo inta badan agaasimayaasha waaxaa kala duwan ee wakaalada biyaha Burco guud ahaanba madaxdii cuqaashi iyo waxgaradkii kala duwan ay halkaas ka hadlay ayaa si weyn u amaanay maarayihii hore ee wakaalada biyaha Burco iyagoo ku majeertay waxqabad iyo dadaal badan waxayna ku booriyeen maarayaha cusub inuu halkii maarayihii hore dhigay ka sii amba qaado waxqabadka dhinaca biyaha ee Burco waxaan ku amaanayaa maarayaha aan si sagootiyayno oo aan aad ugu amaanayaa wada shaqayntii wanaagsanayd daacadnimadii habkii roolkii intii aan wada shaqaynaynay dhaqanka ahaa ee maartay meesha ka jiray ama sidaan wada shaqaynaynay maarayaha cusubna waxaan ku soo dhaweynayaa macnaha farxad iyo gacmo furan iyo sidii reer Burco loola shaqayn lahaa waxaan ka markacayaa ilaahay wuxuu ka madax abaar isleeyahay shakhsiyaadka ilaahay u suurtageliyay hay'adihii loo dhiibay inuu ku guuleeyay hay'adahan qaranka ama wasaaradaha qaranka shakhsiyaadka loo dhiibayo qofna ilaahay uu ku guuleynayo uu shaqaysu ka soo baxaya qofna waxa dhacaysa inuu aanu ku guuleysanin magaalada intii uu joogay biyana kama horreynin shaqa wanaagna kama horreynin ninka wadaha cusub ee maarayaha cusubna sigara ducada waynu ku soo dhaweynana waxaan leeyahay halkii Jirde iyo meelkiisa wanaagsan baka magaalada iyo dadka iyo biyaha gaarsiya Allah ka yeelo xilka Allah ku fududeeyo waxaynu sakooteena maarayihii wakaalada biyaha ee gobolka Togdheer waanu u mahadnaqaynaa waxyaabaha uu soo qabtay oo ka soo shaqeeyay isaga ku xigeenkiisa maarayihii biyaha hore waa soo tabcay wanaagsan buu ahaa gobolka buu waa mahadsan yahay ka dambeeyay waa nin aanu aqaano maarayihii hore wakaalada biyaha Burco Mudane Ibrahim Jirde ayaa madashaasi ku soo bandhigay duruufii ku gadaamnaa waqtigii uu xilka la wareegay iyo waxqabadka muuqday oo haatan ku wareejinayo maarayaha cusub wixii uu qabtay waa la garanayaa kan dambeena wuxuu kordhiyo ayuun baa la eegaya waxaa la wareegay deyn dadweyne oo dhan bal hadda hadalkaa dhigaa u raariciya 980 milyan oo deyna ummaddu leedahay dowladda ka dhaxeeya 5 ceel bay ahaayeen 5 ceel midna mishiin ay leedahay oo wakaaladu leedahay ma jirin waxaan la wareey ma jirin ba mishiin wakaaladu ay leedahay oo shaqaynaya wax ka biyood oo ay magaaladu lahayd haba yaraatee ma jirin oo aan la wareey qaale aan midaysnayn waxaan la wareegay nidaam meel aanu ka jirin nidaam iyo system kala dambayreed oo haykal dawladeed baan la wareegay waxaan wareejinayaa shaqaale midaysan biyo midaysan iyo oo tayo leh oo systemkii dawladeed oo kala dambeyntiisii oo waaxyihiisii leh ayaa wareejinaya maarayaha cusub ayaa isaguna uga mahad celiyay maarayihii hore waxqabadkiisa waxaanu bulshada Burco iyo shaqaalaha wakaaladaba ka codsaday inay ugu duceeyaan xilkaasi isla garab taagaan wada shaqayn Burco waxaan ka codsanayaa bal horta marka hore in xilka la igu duceeyo in Ilaahay uu asturo horta anigu waxaan ka mid ahaa shaqaalihii wakaalada biyaha runtii xog badan waanu hayaa ninka soo shaqeeyay baan ahay horta waxaan u sheegayaa dadweynaha reer Burco siday gacanta ugu hayeen ay ugu shaqeynayeen anagana nagula shaqeeyaan mas'uuliyiin ka socotay wasaaradda khayraadka biyaha maamulka gobolka iyo degmada Burco ayaa iyaguna tilmaamay inay taariikhdu xusi doonto maarayihii hore ee wakaalada biyaha maarayaha cusubna laga rabo dadaal intii hore ka badan inaan la shaqeyno oo sida aan Ibrahim la shaqeynay iyo si ka balaaranba aan la shaqeyno waana sunnada dawladnimo in xilkan laga qaado qof kale loo dhiibo laakiin Ibrahim wuxuu ka tirsanaan doonaa oo ahaan doonaa wali wasaaradii shaqaalaha ka tirsan buu noqon wasaaradda biyaha marka Ibrahim naga mid fogaan wali waa naga mid tahay taas adiguna ku biyo cabaysa insha Allah walaalkeen fadhina waxaynu uga baryaynaa Ilaahay inuu yahay xilka la qabto waxaan markaati aan wareeg lahayn aanu ka nahay hadaan nahay maamulka golaha deegaanka iyo dhammaan reer Burco afkoodii ku hadlayna degmada in maarayihii hore Jirde ay xusi doonto taariikh sunnada dawladnimo ayay ka mid tahay in hay'adaha dawladda kolba nin lagu tijaabiyo laha dawladnimo ayuunbaa Ibrahim bedelay xumaan kale oo wasaaradda ka dhaxeeyana ma jirto maarayaha cusub waxaan leeyahay maaraye waad aragtaa maarayihii hore sida loo ammaanaye adigana waxaa lagaa filayaa
inaad shaqaaluhu siday isugu dhaabnaayeenna isugu dhaabnaadaan horumar intaa ka badanna Burco iyo biyaheedaba aad sii gaarsiiso. gabagabadiina waxaa maareeyay hore ee wakaalada biyaha Burco uu shahaado sharaf iyo ku maamusay qaar ka mid ah shaqaale weynaha wakaalada biyaha Burco, shakhsiyaad, shirkado iyo qaar ka mid ah warbaahinta gobolka oo si hagar la'aan ula shaqeeyay muddadii uu xilka hayay. Mustafa Cismaan Magaalo, muuqbaahiyaha qaranka magaalada Burco.